bismillaahi raxmaani raxiim kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha wararka xaqiiqda caalamka iyo Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya bartilmaameedka koobaad madaxweynaha Suuriya iyo waliba qaarijintiisa Daesh qaramada midoobay waxa ay shaaca ka qaaday qorshaha iyo waliba damaca Daesh ee Ahmed Sharaac hogaamiyaha Suuriya haddaba maxay tahay sababta waqtigan keentay in hogaamiyaha Suuriya si weyn loo bartilmaameeyo qaarijintiisa ku aadan Daesh waxaa sidoo kale ku daawan doontaan Mareykanka oo si qarsoodi ah dalka Iran ku gelinaya internetka Starlink si mucaaradku ay u helaan xogaha dagaalka Iran talaabooyinka Iran waqtigan ay qaadayso ayaa u muuqda saansaan dagaal iyadoo gantaaladii ugu cuslaa waqtigan ay tijaabisay haddaba dalka ay ku tijaabisay waa kuma Iran ma waxay damacsan tahay markan in dagaalka sida weyn loogu digayo Mareykanka ay ku qaadi karto haddii Iran ay ku qaado dagaalka Mareykanka saameyn intee leeg ayay kala kulmi kartaa ma jiri karaan dalal kale oo waqtigan si weyn garab ugu noqon waaya ama garabkeeda ka baxa dagaalka Iran ay qorsheynayso kadib wada hadallo muddo ay lahaayeen dalkaasi Cumaan lagu qabtay u muuqday in ay fashil ay ku soo dhamaadeen haddaba dagaalkan cusboonaaday Mareykanka iyo Iran ayaa u muuqda waqtigan in bariga dhexe oo dhan saameyn xooggan ku yeelan karo haddaba gantaalada ugu culus iyo waliba maraakiibta dagaal ee Mareykanku uu soo diray saameynta ay ku yeelan karaan Iran ma u muuqataa mid ay iska difaaci karto iyadoo aan aragno in Iran ay miiska ay soo saartay gantaalada kuwooda ugu ridada dheeraay ama ebidba ay sameeyso qobanaheena ayaan ku qaadaa dhigi doona waxaa sidoo kale aad ku daawan doontaan maraakiib dagaal oo Turkiga u soo diray Soomaaliya ayaa si weyn ugu soo qulqulaya xeebaha Soomaaliya iyadoo kuwii ugu horeeyayna ay soo gaareen dekedda magaalada Muqdisho haddaba Turkigu iyo waliba taakuleyntiisa hubka nuclearka ama dagaalka ka dhanka ah ee maraakiibta saameynta ay ku yeelan karto qulqulatada Soomaaliya waqtigan la jooga iyadoo si weyn loogu baqdin qabo in Soomaaliya oo dhawaan ay saameynteeda kala kulantay Israa'iil qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya haddaba sababtu maxay tahay Turkigu uu taageeraha intaan leeb ugu fidinayo Soomaaliya ma wuxuu damacsan yahay in uu isagana Israa'iil ka difaaci karo Soomaaliya Israa'iil iyo Turkigu xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeya haddaba xiriirkoodii hadii uu arko in Soomaaliya sidan ugu daadgureynayo ma ku dhalan kartaa in uu markaasi uu xul u la noqdo hadii dagaal uu ka qarxo Turkiga iyo waliba Israa'iil haddaba maxay tahay rajada Soomaaliya ay leedahay dhinaca kale gaashanbuurta NATO iyana waxay markaasi ku goondinaysaa dagaal cusub oo ay ku qaadi doonto dalalka awoodda sheeganayo ma waxay damacsan tahay inay kaga hortagto Iran mise waxay damacsan tahay in Mareykanku ay ku burburiso haddaba maxay tahay sababta keentay waqtigan iyo waxaad kalood ku daawan doontaan golaha nabadda iyo waliba ammaanka ee midowga Afrika oo yeeshay inuu markaasi xoog u saarayo raadinta taageerida ay ugu baahan yihiin ciidamada Soomaaliya ee ka jooga fasaxana ka heesta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee AYSOM qodobadaasi wali bixin ugu soo kordhayaan ku qaadal digi doona marka hore waxaan ka dalbanayaa channelkayga Shariif Show inaad ku soo birtaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibadana sida joogtada oo la socda wararkeena caalamka iyo Soomaaliya aan ku bilaabay markan bartilmaameedka koowaad ee madaxweynaha dalkaasi Suuriya wakaalada wararka AB oo xiganaysa warbixinta cusub oo ay markaasi ka soo baxday qaramada midoobay ayaana sheegtay in madaxweynaha Suuriya Ahmed Sharaac uu yahay bartilmaameedka koowaad ee ururka Daesh uu qorsheynayo inuu markaasi qaarijiyo qaramada midoobay ayaana ka diiwaan gelisay 5 isku daydil oo markaasi la fashiliyay sanadkii ee la soo dhaafay kuwaas oo lagu beegsaday Sharaac iyo waliba sidoo kale 2 wasiir oo sare oo ka tirsan dawladdiisa warbixintu waxa ay sheegtay in weerarkaasi lala xiriirinayo Daesh iyo waliba kooxaha magaca kale leh ee ku shaqeysta Sarayaal Ansaar al-Sunnah oo la wado qorshaha ka dhana in iyaguna weerarkoodu ay ku qaadaan iyadoo markaasi inta badan lagu tilmaamayo in saameyn xoogan ay ku yeelan karto hadii aanan markaasi laga fiirsanin waxaana sidoo kale uu si weyn ugu digayaa in qorshaha waqtigan loo qaban qaabanayo ay feejignaan xoogan ay ka muujiyaan wasiiradiisa iyo waliba soo kale ilaalada khaaska u saglowta dhinaca kale wargeyska Wall Street Journal ayaana maanta markaasi ku waramaya in Mareykanku si qarsoodi ah u gelinayo gudaha Iran in ka badan 60,000 oo internetka dayax gacmeedka Starlink markaasi loogu talagalay in loogu fududeeyo mucaaradka in ay helaan habka ay ku xiriiraan dawladda Iran hawadana markaasi ka saarto internetka talaabo walba markaasi lagu sheegay in ay markaasi cadiso Mareykanka inta uu taageerayo mucaaradka Iran qorshaha waqtigan uga adag ee Iran ay wajahayso ayaa ah
dhan kasta waxa ugu muuqda markan in weeraro culus ay ugu imaanayaan iyadoo Mareykanku si weyn markaas u wado qorshe ka dhana iyo waliba taageeridiisa ku aadan dagaalka ka dhanka Iran si lagu soo afjari lahaa qorshaha ugu adag ee Mareykanku wado ayaa ah isaga oo xooggan saaraya in gebi ahaanba ka awood roonaan karo Iran iyadoo u muuqata waqtigan in saameynteeda dhankeeda iyana ay bilaabayso hubka nuclear-ka ugu culus ay iyadu ay tijaabinayso taasi oo lagu mamnuucay taasi oo ayna ka mamnuucday in gebi ahaanba Mareykanka ay kala baqdo culays kasta ugu imaado dhinaca diblomaasiyadda ama dagaalka waxay diyaar u tahay Iran kama cabsoonaysa ayaa la yiri wax kasta ama talaabo kasta oo ay markaas Mareykanka iyo waliba dalal kale ugu imaadaan way u diyaarsantahay gebi ahaanba inay ka hortagi karto hubka ugu culus ee nuclear-ka ah ee Iran ay haysato ayaa la tilmaamaya inuu yahay kan ugu ridada dheereeya marka laga tago midka NATO ama gaashaanbuurta NATO iyadoo u muuqato waqtigan in Mareykanku si xooggan leh qorshooda ugu wado in ka badan 60 kun ee internetka Starlink loo yaqaano ayuuna qorshaha u yahay inuu ka helo xogta dhabta ee mucaaradka ee halkaas ku sugan iyadoo wali dagaalka uusan ka dhex qarxin labadoodba dhinaca kale gaashaanbuurta NATO ayaa iyana ku goondinaysa dagaal cusub oo iyana ay cilaaminayso si kastaba ha ahaatee waxa ay wada qorshe ka dhan ah iyo waliba talaabo ay qaadayso oo ah in iyadana dhankeedu bariga dhexe ay ku fogaan tahay sidii ay ku soo burburin lahayd oo walibana si cad ay u sheegtay Mareykanka iyo Iran hadii aynan ka fogaanin waxyaabaha ay qorsheynayaan oo ay markaas ku goondinayaan in gebi ahaanba aynu soo afjari doono ama culays kasta ha lahaatee aan talaabo culus ka qaadi doono Iran waan arki doonaa meesha ay ku dambeeyo gaashaanbuurta goodinteeda iyo waliba soo kale culayska Iran ay ka wajihi karo saameynta ay ku yeelan karto dagaalka bariga dhexe ee ilaaminayso markana Turkiga ayaa si weyn markaasi ugu soo diraya maraakiib dagaal oo aad u xoogan dalka Soomaaliya iyadoo u muuqata in xeebaha Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay si weyn ay u soo guuxdhaafinayaan maraakiibta dagaal ee Turkiga uu leeyahay iyadoo u muuqato in talaabooyinka Turkiga uu qaaday Soomaaliya taageeridiisa ku aadanba ilaa ay haatan shacana uusan ka qaadin laakiin qubarada ayaa inta badan tilmaamaya maraakiibtan dagaal ee Turkiga ku deeqaya Soomaaliya in ay noqon karaan kuwa markaas looga hortagayo fargelinta Israa'iil haddii Turkiga iyo Israa'iil ay isqabtaan saameynta Soomaaliya ka dhalan karto waa mid cawaaqib xumo leh iyadoo ay u muuqato in labadooda isku dul dagaalaan waa sababaha ugu waaweyn ee waqtigan ay ugu muuqato in saameynteeda ay ugu dhalato ama ay ugu keento وهاجيلا ما تكاد هذا السوق قارتي كوسو برجال كنا كم من نقص صاحب بدنا نسد الجوك تدا وركنا نرجع جنب لنا فره سينا كوسين معلومات كان هكذا كوباين مع سندين